kulan wanaagsan daawade halkani waa aqoon official waxaad ku soo dhawaataa falanqaynta ciyaaraha haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho haddii aad hore inoola joogtay barnaamijka like saar sina share garay si aan u helno asxaab badan oo sidaadoo kale u wanaagsan qodobada aan ku soo qaadan doono falanqaynta ciyaaraha waxaa ka mid ah horyaalka ilaa iyo haatan lacagta ugu badan geliyay suuqa kala iibsiga xagaaga waa maxay sababta Declan Rice ku segay kulankii Barcelona ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal muxuu Lisandro Martinez ku sameeyay Jude Bellingham kadib qaladkii xumaa ee qaska geliyay ciyaartii Real Madrid iyo Manchester United ee Saakay Barcelona oo garab weyn ka heshay Qatar iyo lacagta ay siinayso ee xalinaysa dhibka Camp Nou Arsenal oo jirtay Barcelona Hazard oo mar kale dhaliyay xilli 8 gool iska dhaliyay lees dhaafsaday Real Madrid oo gool ka gaartay Manchester United xilli saxiixeeda cusub gool qurux badan isku bareen dunida markale daawade waxaan ku leenahay soo dhawow haddii aad hore inoola joogtay barnaamijka like star sina share garay haddii aad nagu cusubtahay barnaamijka subscribe dhaho waxaan gudagalaynaa falanqaynta ciyaaraha haddii aynu soo qaadano qodobka ugu hore aad ku daawan doontaan barnaamijka falanqaynta ciyaaraha waa kee horyaalka ilaa haatan lacagta ugu badan geliyay suuqa kala iibsiga xagaaga ayaa marayo meelo xiiso leh iyada oo kooxahu u dadaalayaan sidii ay u xoojin lahaayeen kooxdooda ka hor bilaabashada xilli ciyaareedka cusub kooxaha qaar ayaa haatanba baanankooda u jebiyay sixiyada ay doonayaan in ay ku xoojiyaan kooxahooda suuqa kala iibsiga xagaaga xidigaha Jude Bellingham Declan Rice iyo xidigo badan ayaa laga bixiyay lacago badan iyaga oo ku biiray kooxo cusub suuqa xagaaga sidii caadada ahayd horyaalka Premier League ayaa suuqa geliyay lacagta ugu badan iyaga oo ilaa iyo haatan suuqa geliyay lacag dhan 1.29 bilyan oo euro waxaa ku xiga horyaalka Talyaaniga oo suuqa geliyay lacag dhan 476 milyan oo euro waana horyaalka labaad ee lacagta ugu badan suuqa geliyay xagaagan waxaa ku xiga horyaalka Faransa iyadoo horyaalka Ligue-1ka suuqa geliyay lacag dhan 420 milyan oo euro halka uu ku xigo horyaalka Germany ee Bundesliga suuqa geliyay 414 milyan oo euro waxaa lacagta ugu yar suuqa geliyay ilaa iyo haatan horyaalka La Liga iyada oo kooxaha ka ciyaara horyaalka Spain suuqa geliyeen lacag dhan 237 milyan oo euro muxuu Lisandro Martinez ku sameeyay Jude Bellingham kadib qaladkii xumaa ee qaska geliyay ciyaartii Real Madrid iyo Manchester United xidiga reer England ee Jude Bellingham ayaa daboolka ka qaaday wuxuu Lisandro Martinez ku yiri kadib taakalkii xumaa ee uu daafaca reer Argentine ku qabtay ee qaska geliyay ciyaartii Real Madrid iyo Manchester United ee xalay taasi oo keentay in dhammaan ciyaartoyda labada kooxood ay isku soo xumaan Jude Bellingham oo dhaliyay goolka koowaad bilowgii ciyaarta kulankii ay Real Madrid 2 gool iyo eber ku garaacday Manchester United oo ay magaalada Houston ee wadanka Mareykanka isku heleen ciyaarta ayaa qas iyo buuq noqotay markii uu Lisandro Martinez taakal xun ku qabtay Jude Bellingham oo isaguna si caro leh ugu falceliyay iyadoo ciyaartoyda kale ay kala jiideen daafaca Manchester United Lisandro Martinez oo lagu naanayso Hilibley ayaa u muuqday mid aan ka gabanayn sidoo kalena aan wax dhibaato ah u arkaynin qaladka uu sameeyay balse Jude Bellingham oo ciyaarta kadib la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay inuu ixtiraam u hayo daafaca waxaanu waliba u jeediyay amaan Jude Bellingham ayaa yiri Martinez waa ciyaartoy cajiib ah waqtiga nasashada ayaanu is aragnay anigu oo careysan laakiin markii uu yimid ayuu ii sheegay inuu ka xun yahay wixii dhacay oo uu wanaag ii rajeeyay markii la bedelay waana is aragnay run ahaantii ixtiraam ayaan u hayaa ayuu yiri Jude Bellingham waxaad daawanaysaan xulashada ciyaaraha
oo aad ka daawanaysaan aqoon official. Waa maxay sababta uu Declan Rice ku seegay kulankii Barcelona? Xidiga khadka dhexe kooxda Arsenal Declan Rice ayaa seegay kulankii ay Arsenal guusha ka gaareen kooxda kubadda cagta Barcelona, kulan ka tirsan isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. Rice ayaa kooxda Arsenal kaga soo biiray West Ham suuqa xagaaga, waxaana ugu soo biiray lacag rikoor ah. Rice ayaa ciyaaray kulamo kooxdiisa cusub toddobaadkii ugu horeeyay, laakiin Rice ayaa seegay kulankii Barcelona ee xalay ka dhacay dalka Mareykanka ee isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub. Sababta uu Declan Rice ku seegay kulanka ayaa ahaa dhaawac bowdada ah oo xidiga kaga soo gaaray tababarka kooxdiisa. Dhaawaca ayaan ahayn mid halis ah, waxaana looga saaray kulanka Barcelona taxadir. Dhinaca kale, dalka Qatar ayaa u muuqda mid xalinaya dhibka kooxda Barcelona ee suuqa xagaagan, iyagoona ku sameynaya maalgelin weyn oo 100 milyan oo euro ah. Maalgelinta 100 milyan ayaa xalin doonta dhibaatooyin badan, sida inay Barca awoodi doonto inay diiwaan geliso dhammaan saxiixyadeeda cusub iyo heshiisyada Ronaldo Araujo iyo Sergio Roberto. Maalgelinta oo ay maamulka horyaalka La Liga dib u eegis ku sameeyeen ay wax khalad ah ku helin oo aqbaleen, sida uu sheegay saxafiga Ferran Torres. Madaxweynaha Barcelona Joan Laporta oo si adag uga hadlayay horumarinta kooxdiisa ayaa la fahansan yahay in safarkii uu horaantii sanadkan ku tagay dalka Qatar uu ku soo galay heshiiskan. Suuqa wili waxa ugu harsan hal saxiix khad dhexe, iyo kooxda Arsenal ayaa xasuuq daran kula kacday kooxda Barcelona kulan ay labada kooxood isugu diyaarinayeen xilli ciyaareedka cusub ee horyaaladooda. Labada tababare Xavi iyo Arteta ayaa kulanka ku soo galay shaxdooda ugu adag, iyadoo mid waliba doonayay in uu tijaabiyo midka kale. Barcelona ayaa ahayd kooxda maamulaysa ciyaarta xilli ay Arsenal ciyaareysay kubad orod ah, maadaama ayna kubad haysasho ku gaarin Barcelona. Xidiga Roberto Lewandowski ayaa dhaliyay gool waqti hore ah kadib markii uu daqiiqadii 7 hogaanka u dhiibay kooxdiisa, ciyaartana ka dhigay 1-0, laakiin Arsenal ayaa waqti dheer ku qaadan inay ciyaarta ku soo laabato kadib markii ay daqiiqadii 13 ku soo laabatay ciyaarta, iyadoo Bukayo Saka ka dhigay 1-1, waxaana mar kale hogaanka ciyaarta u qabatay Barcelona kadib markii uu Rafinha u dhaliyay gool labaad ee ciyaarta, kana dhigay 2-0 ay Barcelona ku hogaaminayso. Xidiga Kai Havertz ayaa mar kale kooxdiisa ku soo celiyay ciyaarta kadib markii uu daqiiqadii 43 dhaliyay goolka labaad ee kooxdiisa, kana dhigay 2-2. Qaybta dambe ay Arsenal ahayd kooxda awoodda badan dhinaca fursadaha, iyaga oo dhinac waliba ugu fiicnaa Barcelona oo kaliya ka fiicnayd dhinaca kubadda haysashada. Daqiiqadii 55 ayaa Arsenal hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana u dhaliyay Leandro Trossard, kaasi oo ciyaarta ka dhigay 3-2. Arsenal ayaa mar kale ciyaarta dhalisay goolkii afraad ee ciyaarta, waxaana u dhaliyay Trossard oo ciyaarta ka dhigay 4-2. Barcelona ayaa la timid goolka saddexaad ee ciyaarta, waxaana u dhaliyay Ferran Torres. Arsenal ayaa gool shanaad la timid ciyaarta, waxaana u dhaliyay Fabio Vieira oo ciyaarta ka dhigay 5-3 oo ay guusha ku raacday kooxda Arsenal. Dhinaca kale, Real Madrid ayaa Manchester United uga adkaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Real Madrid. Goolasha Real Madrid waxaa kala dhaliyay Jude Bellingham. Goolasha Real Madrid waxaa kala Jude Bellingham iyo ciyaaryahanka dhawaangalka ee kooxdaasi Joselo Mato. ciyaartaasi ayaa kusoo dhamaatay 2-0 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. falanqaynta ciyaaraha waa iginta daawade. haddii aad nagu cusubtaa subscribe saar, haddii aad hore inoola joogtay like saar, siina share garey barnaamijka si aan u helno saaxiibo badan oo sida